dhammaan asxaabteeda daafaha dunida kala nool asxaabta nagu xiran ee kuwa nagu soo biiri doona meel kasta joogtaan waqti kasta idin tahay ku soo dhawaataane TV waa subaxnimo sabtiya daawadayaal saaka safar baan galeynaa waxaan u soconaa magaalada Milton-Keynes subaxnimo sabtiya sanadii sheegayba waa 7 barkii waa goor hore imkan diyaar garoobayna branch ma sii qaadanayna oo sii qoraxayna ka bacdina saasan ku baxayna vlog nawadiisi duubi doona inta aan sii socono magaalada Milton-Keynes oo ka mid ah magaalooyinka ugu qurux badan dalka UK-na muuqaal aan caadi ahayn baan ka soo duubi doona insha Allah hadii aad ka mid ah asxaabta nagu xiran nagu soo biir subscribe-tana ku dhufo muuqaalkana xidhi ilaa ayaa dhamaysato sababtoo ah muuqaalba ku kasi dameeyo kasi qurux badan yahay let's go dawlayaal imika guriga ka soo baxnay waxaan u soconaa sanadii sheegay magaalada Milton-Keynes waxaan guriga baan ka soo baxnay laakiin waan sii quraacanaynaa ka bacdina highway-gan koreynaa waan soo soconaa ina marsha waxaan rajaynaynaa inaad enjoy garaysaan hadaalina in marsha sii wada quraacanaynaa oo sii wada shaahaynaa let's go iminka meeshii aan ka cunteynay waan ka soo baxnay calooshu waa happy jawguna waa happy iminka ka soo baxnay magaalada London let's go the weather is absolutely amazing qorax baa jirta maanta inkastoo waqtigan oo kale sanadadii hore na soo dhaafay ay jirtay waqti qabow haddana waxaad moodaa inaan samarkii joogno oo waa kuleyl weeyaan maanta marka it's a good day to travel maalintada baxaysay magaalada ka dhooftaan muxiiba ku jaleeco maalintada baxaysay magaalada ka dhooftaan muxiiba ku jaleeco dawdayaal imika waxaan soo gaadhnay magaalada Milton-Keynes waxay ku talaa sidaan hore idinku sheegay videoga bilowgiisa magaalo waxa weeyaan aan ka fogeyn magaalada London oo ilaa adigu saacad dheeraad u jirta meelaha qaarna waa uga sii dhowdahay sidoo kale magaaladan waa magaalo marka aad soo gasho waxaad moodaysaa inay ka duwan tahay magaalooyinka kale ee dalka UK sababtoo ah waxa loo dhisaan gareeyay sidii dalka Mareykanka oo kale waxay caan ku tahay baakak waaweyn baa ku yaalo aad runtii u qurux badan marka baakana aan ku jirno magaciisa waxa la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa Iskariyo Campbell Park baa la yiraahdaa waa park marka soo gasho guryaha iyo magaalada dhismaheeda ma arkaysid ba waxaad arkaysaa dhir kaliya arkaysaa dhismayaashiina dhirtaas ayaa qarinaya waa magaalo runtii aad u qurux badan waxay caan ku tahay baakak badan bay leedahay sidii sheegay waxa aan ku tahay Hanabaadka aan ku tahay oo waliba aan traffic light badankooda aan lahayn magaalada gudaheeda speed limitku badankiisu waxa weeye 70 miles per hour halka London meelaha qaar yihiin 20 ama ka sii yar yihiinba waa magaalo runtii Soomaali badan baa degan Soomaalidaasna barnaamijkan ku xiga aynu wareysan doonaa community-ga aan dhex mari doonaa marka nala socda dawdayaal imika waxaan ku suganahay xaafad kale oo loo yaqaano the White House waa xaafad kamid ah xaafadaha magaalada MK ama Milton-Keynes waa xaafad casriya oo cusub oo marka timaado aad soonayso
magaraysa waa very brand new imka la cusub imka farta laga qaaday waxa ku dhex yaala in ka badan 4,000 oo guri waxay leedahay iskuuladii bay leedahay waxay leedahay shoppingkii bay leedahay waa magaalo ku dhex taala guryuhuna waa casri runtii waxaad moodaysaa inaanad joogin UK waxaad moodaa dal kale inaad joogtid sida guryaha loo dhisaan gareeyay wadooyinkeeda waasica waa xaafad saxmad yar dad badan oo reer London oo ka soo cararay buuqii London ayaa halkan soo degay cidii doonaysa inay ka soo guurto London doonaysa inay saxmadda London isaga cararto oo ama ka tagto halkan ay iman kartaa oo ka iibsan guryaha qiimaha guryaha runtii waa shay ugu horeeyay aad isweydiin karayso markaad meeshan aragto dadka degan xaafadan waxay idhaahdeen guryaha qaar waa $500,000 ayuu weeyaan qiimahoodu runtii waxa weeyaan waa markaad u eegto London waa aad bay uga jaban tahay because waa guri dhan oo dhisan oo cusub oo farta laga qaaday oo adiguna aad tahay qofkii ugu horeeyay ee dega oo runtii gurigii lagu wareejiyay furiina lagu dhiibay go'aanaya waa $500,000 waliba waxa jira haddii aan lacagtii dhan aan wada haydina waxaad u bixinaysaa si yar ama haftad ku bixinaysaa Islamic Bank baa jira marka kuwaasna wada la xiriiri doontaa barnaamijkan halkaan ka soo diyaarin doona insha Allah dhawaan tawadayaal dad badan ayaa ka soo cararay sidii sheegay London oo aan halkan kula kulanay aan doonayay in kamarada ka soo muuqdaan oo yiri London way nagu saxmad badatay halkan ka shaqo tagaan oo London bay u shaqo tagaan galabtina way ku soo noqdaan waa xaafad aad u qurux badan aan isla aragno waxaanu joognaa meel kale oo la yiraahdo Willen Lake baa la yiraahdaa waxa ku yaala wariida ku yaala aad runtii u qurux badan oo aad ka qaadanayso doon baad ka qaadanaysaa meelaha ku soo wareegaysaa waxay leedahay view runtii aad u qurux badan halka iga dambaysa waa waxay soo egtay meel ku taala London ayo kale ku taala oo runtii aad iyaduna u qurux badan soo egtahay MK oo aad ugu haysta oo magaalo aad u qurux badan runtii anigu reer London baan ahay laakiin magaaladan waxaan joognaa sida ii sheegay blog videoga weekendkan isku ku isbeen gareynaa aan isla aragno odayaal iminka meeshii aan idin sheegay aan lahaa London ay buu egtahay aynu koreynaa inamasha magaalada dusheedana waa magaalada dhan waa la arkay dusha laga arkaya let's go iminka tigirkii waa laga qaaday thank you very much brother yeah cheers and it's qiimaha lagu koriyo waa £6 magaalada dusha ka arkaysa aan isla aragno imka nala dhaqaaqday let's go indhaha wax arag wajigaaga haddaana marag dadkaaga haddaana maqal daduguma maqla waxabeeyeelasha indhaha wax arag wajigaaga haddaana marag dadkaaga haddaana maqal daduguma maqla waxabeeye